xariifkan wuxuu dalabkooda keenay lamaanahan kadibna gabadhu waxay sameynaysaa dharkeeda habeenka qabanaysa ninkeena ku dhajinaysa dharkiisa markuu ninka si baxana si lama filaan gabadh dharka ka faqaya markaas ay gabadh indhaha taagayso oo qeylinaysa waxaan xariif ku dheesay maxaad sidan igu sameeyso dharkeed iga qaabiday hal rarbaash ayana ku dhufanaysa ninka si soo istaagay waxay ku dheesay baxalkan ka tag oo naga fogow xariifka iskan qanjiis ayuu iska uu yaabin yahay qoftan wax ka qaldan iyo waxa uu sameeyay markuu soo baxo wuxuu dareemay qanjaan waxa uu dhagan yahay maraayada hortagay oo isku fiirinaya markii uu gacantiisa ka qaadana waxa meesha ku qoran help yani caawi kadibna xariifka uu fikiriyay wuxuu isdhayaa maxaa qaldan gabadhan sidii yani kuugu qortay midaani lamaanahan sidoo kale iska fadhiya way sheekaysanayaan iyagoo waliba ka sheekaysanaya waxa markaasi dhacay markaasi ay ninka wuxuu ku dhahay gabadhan keen waan bixin halkan waan ka tageynaa markii gabadha sidaas lagu dhaho way yaabaysa waxaan ku dheesay laakiin anaga bil raashinka ma aanan dhameenin oo waxay ku dheesay lacagtina aan ka miirsan marka raashinka si fiican aan cuno aan dhameeno waxaan dheesay waan ku sii karaa mar walba cuntadoodan dhameeso xariifkan wuxuu iska tirtiray qanjaha markaasi ninkeedu wuxuu ku dhahay adiga marabtid miyaa inaan meeshan ka tagno sidoo kale markaasi wuxuu ku dhahay waad ogtaa meeshan waxa ka dhacay ninkan aan ka tageynaa kadibna gabadha waxay isku daysaa qanjada inay gacanta saarto kadib ay wuxuu arkaya gacanteedu wax guduud marsan markaasi soo istaagay wuxuu weydiinay wax marsan gacanteeda kadib ay wuxuu ogjaaysaa gacanteeda waxba ma marsana balse wuxuu ku dhahay may kaameel imdaas ay tusi gacantaada markay tustana waxba uma marsana markaasi uu dhahay adiga maxaad ku fikraysaa inaad sameeyso ee ninka halkan ka tageynaa ayagoo bixir waan waxa imaanaya weerarka wiliba isagoo wada raashin ninka ku qeelinaya waxaad xumaysay xaaskiga halkan iskaga tageynaa markaasi wuxuu ku dhahay raashinkan waa mid raali gelin ah kadibna ninkii naagtiis way degayaan waxay isdhahayaan ninka raashin fiican iyo idinkeena meesha inuu saaraya xariifku soo fadhiisanaya wuxuu bilaabay inuu cuno cuntada wiliba wuxuu cuntada cunaya isigoo ka taxadaraya gabadha si fiican oo fiirinaya gabadhan waxay isleedahay ninkan ma ku fahmay inaad u baahan tahay caawinaad iyo in kale isagana cuntadiisa sugsii cunayaaba kabaliyerigiina uu dhool cadeynaya sababtoo ah waxa la amaanaya raashinka uu keenay ninkan wuxuu ku leeyahay raashinka aad ayuu macaan badan yahay balse daqiiqad kadib ninka amar wuxuu dareemaya allergy yani waxa ku xasaasiyad wuxuu keenay bashaas guduud ninkan basashaas xasaasiyad uu ka qabaa gabadhan waxay ku dheesay maxaa ku sameysay isagana kaliya wuxuu sheegay inuu siiyo basal guduudan uu sigana mar oo sheegay basashaas inuu ka qabo xasaasiyad sababtoo ah mar wuxuu imaajin maqaaxidan wuxuu sheegi jiray basash inuu ka qabo xasaasiyad uusan siin markaas ayuu ku dhahay iska baxalkan iskaga tag isaga aniga ay ambulance ay caawinaysa gabadhan way mahad celinaysaa sidaas ay badbaadaysaa